gabar yar oo u dhalatay dalka Slovenia ayaa dhawaan lagu xukumay xabsi 2 sano ah kadib markii lagu helay dambi ah inay si kas ah gacanta isaga jartay. Ujeedka Julia Adlestig ayaa waxa uu ahaa inay hesho lacag caymis ah oo dhan 1.2 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Laakiin ma aha waxa ay filanaysay Julia inay gacanteeda ku weyn doonto isla markaana aysan heli doonin wax lacag ah oo caymis ah. Iyadoo 22 sano jir ah ayay waxay degtay qorshe qamaar ah waxaana ku wehelinayay oo ku raacay aragtidaas wiilka ay saaxiibka yihiin iyo aabaheed. 1.2 milyan oo dollarka Mareykanka ama ahan lacag sahlan oo dhadheel lagu shaqayn karo. Julia Adlestig ayaana soo degtay qorshahan si ay furka faqriga u tuuraan iyada iyo qoyskeedu. Gabadha aabaheedna arrinkan waa uu ku raacay. Horaantii sanadkii 2019 Julia ayaa waxaa isbitaalka ula soo cararay wiilka ay saaxiibka yihiin, waxaana uu xilligaasi u sheegay dhaqaatiirta in gabadhaani ay qaab shil ah gacanta isaga jartay, iyadoo xilligaasi ka shaqaynaysay inay googooyso geeda ku yaala gurigeeda. Balse baaritaan qaatay ku dhawaad muddo 2 sano ah ayaa lagu soo ogaaday inay Julia iyadu gacanta si kas ah isaga jartay. Caymis la siiyay iska dhaafe iyada ayaa lagu xukumay xabsi 2 sano ah, saaxiibkeedna waxaa lagu xukumay xabsi 3 sano ah, aabaheedna waxaa lagu xukumay xabsi 1 sano ah. Julia ayaa warbaahinta u sheegtay inay tahay wax dhib badan marka uu qofku curyaan noqdo isagoo 20 sano jir ah, waxaana ay intaasi ku dartay in xilligan la joogo gacanteeda aysan ku bedelateen lacagta dunida taalo oo dhan. Qofna ma doonayo inuu curyaan noqdo. Nolosheedii dhalinyaranimo ayaan iska burburiyay, maxaa yeelay gacanteyda ayaan iska jaray anigoo 20 sano jir ah. Julia ayaa sidaasi u sheegtay warbaahinta markii maxkamadii ay ku xukuntay xabsi 2 sano ah isla markaana ay weysay caymiska ay dowladeeda ka filaysay. Waxa kaliya aan garanaya ayaa ah hadda habkii aan wax u soo qorsheeyay ayay hadalkeeda ku soo afjartay gabadhii hamisay geniyaasha lacageed, laakiin gacan la'aantu ay ku dhacday.